أيوة ما حسنت هاي وأنت كسي بدن والوسود وينيا سيدا حاجة أديك وكلا وحاجة تشيرنا وحال ربع سيدا أديك الوسود ويو قرحت بدنين الوسود ويو وما حسنت هاي dagaalamayaashan ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada qalabka sida ee howlgallada ka wada aaga u dhaxeeya Ceelbuur iyo Guriceel kadib markii ay xiriir la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo madaxda barnaamijka qaran ee dhaqan celinta maleeshiyaadka DRB ee Galmudug dagaalamayaashan oo lagu kala magacaabo Maxamed Nuur Barre iyo Mawlid Cumar Faarax Ciro ayaa sheegay inay ka tanaasuleen fikirkii guracnaa ee argagixisada iyagoo codsaday in la cafiyo diyaarna ay u yihiin inay la dagaalamaan al-shabaab labadan xubnood oo argagixisada u qaabilsanaa qaybta jabahaadka mudana qayb ka ahaa ficilada argagixisada ayaa xusay in go'aankoodan uu salka ku hayo kadib markii ay arkeen dhibaatada iyo xasuuqa kooxdan ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed tabarkaas waxaan ku qaadanay meel la yiraahdo daca bu'aal waa nagala soo qaaday hameen madooba bu'aal nagala soo qaaday dacana la keenay daca marka dacna la keenay dacdii ninkii waxaan joognay muddo adiga adaan 4 bilood aan joognay meeshii ka bacdi waa nagala soo qaaday laba qaybood aan ahayn waxaan ahayn 340 nin oo aan meeshaas lagu taabaro hawdka dacadniga lagu taabaro ninkii 340 iyo 40 waxa loo qaaday hiire waxa loo qaaday mudug raganaga kalena waxa naloo celiyay jubbooyinka hoose naloo celiyay shaqada aan qabahay anu shaqo military head oo naloo tababaray meel oo waxaan joognay jaqahan joognay meel oo geergo'anahan joognay meel oo wax ku imaha aan la aragan joognay meeshaas 4 saac gudad si baxaleedan gudad iyo beelaya ku jirnay inta wax loo sheegi karaan u sheegi rabaa oo baaqitaanka u diraa dadka meesha joogo bal fikir macnaheeda iyo diinteeda horta fikir kabaha lagu dukunay naftooda bal horta ka qoos qaada aabaha iyo hooyada wala isku nikaaxay sheeqan isku nikaaxay bal horta asiga naftiisa haduu joogo weydii hiish lagu dukunay bal weydii waxyaalo badan oo xoogaa nafteeda aan ku dhaliilay waxna aad ka dhihi karin ayaa jira hadii aad wax ka sheegtana il gaar ahaan lagu fiirna hadana gaashaan la sare Cabdullaahi Cabdi Raagi oo ka tirsan saraakiisha NISA ee Galmudug iyo gaashaan la dhexe Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gazaawe oo qayb ka ahaa soo dhaweynta xubnahan ka soo tagay al-shabaab ayaa sheegay in raggan ay xiriir la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada sidaasna ay ugu suura gashay inay isu soo dhiibaan kadib markii ay qirteen dhibaatada argagixisadu ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo baaq u diray xubnaha wali ka tirsan kooxdan waa idin soo dhaweynaynaa marka hore soo dhawaada 14 soo dhawaada soo dhaweynshihiina iyo soo dhaweyntiinana wixii hadda ka dhiman waa noo sheegi kartaan oo idinku sii darno waa mahadsantihiin waxaan idin ballan qaadaynaa hadda safkaas dhibaatada badan oo isqarxiska iyo adduunyo la'aanta iyo aakhir la'aanta ka soo tagtaan inaad bagaaxaydaan wadankiinana si xorriyada aad ku joogaysaan haddii ay idinku cabsi geliyaan dadkii la qabto waa la gowraca ama waa la dilaa dhibaatadaas dadka iyaga ku haya waan soo dhaweynaynaa inay dalkooda iyo dadkooda dib u xoreeyaanna waa rajay doonaa waxay isu soo dhiibeen raggaas dhibaatada ay arkeen oo ay ka dhex arkeen nimankan shabaabka dhexdooda duruufaha ku haysta iyo dhibaatooyinka ku haysta ay arkeen dhibaatooyinkaas xanuunkooda ay uga soo baxsadeen xorriyad male waarad lama hadli karaan xaasaskoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodiina lama hadli karaan intaas waxa ka dheeriya inay daroogo iyo dhibaatooyin badan u geysteen oo qof kasta ay la daba joogaan inay cirbad ku dhiftaan si uusan xorriyad u helinin mabda iyagu ay aaminsan yihiin mabda aan ahayna inaysan samaynin marka waxaan ugu bashaaraynaynaa dhalinyarada meeshaas ku jirta ee la qalday ee la marhabaabiyay waxaan leenahay dhalinyaro ay soo dhawaada haddii ay soo dhiibi waayaanna dee waxay marayaan kuwii hadda birdheer oo kale meesha la yiraahdo ceel dheer oo kale wax ay marayaan oo kale marayaan wixii la marsiiyay marayaan iyo meelo ka sii xun ciidamada qalabka sida ayaa howlgallo ka wada qaybo badan oo Galmudug ka tirsan taasi oo keentay in horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan ay ka soo goostaan al-shabaab iskuna soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka iyo Galmudug iyagoo ka soo galaya aagaga howlgalladu ka socdaan ee gobolada Mudug iyo Galgaduud Cabdullaahi Warsamar oo warbaahinta qaranka Dhuusamareeb